raid ku qabtay magaalada Burco ayaa waxay sheegeen xukuumadda haatan haysa talada dalka ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay cunaqabateen dhaqaale saartay ganacsatada beesha oo ay xanibaado ku soo rogtay guddidan ayaa xukuumadda ugu baaqday inay joojiso xanibaada dhaqaalaha iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay ee ay dagaalka kula jirto waa siday hadalka u dhigeen gudoomiye ku-xigeenka guddida Cismaan Xirsi Jaamac xogayaha guddidaasi Kaysa Jinje gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo la taliyaha guddida ee dhanka sharciga Cabdirasaaq Salaad Faarax oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland oo ay sheegeen inay hore ula tageen cabashadooda balse uu waxba ka qaban waayay waxayna sheegeen in baaqani uu yahay koodii ugu dambeeyay anagu waxaan nahay guddida gudaha habar jeclo nalaagama baranayaan tiifiyada ka hadallo oo dawladda ka dhaliilo oo cid ka maagno nalaagama baran laakiin maanta wax aan ka adkaysan kari weynay baa noo muuqda dawladdan waa dawladdii aanu dhisnay ee reerku taageeray ee sida buuxda gacanta midig ku taageeray labada gacmood buu isugu geeyey weeye haddana waanu taageersanahay laakiin waxaanu ka filan weynay ayaa noo muuqda arrimahaas waxaa ka mid a wax badan bay beesha tan aanu annagu guddida u nahay ay tabanaysaa dalku dee reeru ahaayo dalku waa dad isu yimi waxbaa la qaybsanayey Muuse Biixi kuwii ugu yimi iska daa wuxuu taro ayuu dhammaan ka dhameeyey waxaanu odhan karnaa 70% uu ka saaray iyagoo ay sidaa tahay aanu haddana lahayn wuxuunbaa isbedelaya maanta waxa dhacday oo uu soo dhigtay inuu qof kasta oo jooga meel oo baayac mushtariya oo arrin yar wada kuwa ugu yaryar ugu hooseeya ilaa kuwa ugu sareeya ee ugu waaweyn uu mid walba cunaqabateen baayac mushtariga u soo dhigto iyagoo uu si guud ugu soo dhiganayo in wixiiba gacmihiisa yimaadaan oo dadku ku daba faylo oo dadku cunaqabateen uu ku sameeyada noo muuqata waxaan leenahay halkii ugu dambeysay maraysa madaxweyne halkii ugu dambeysay beeshuna in badan bay wax tabanaysay waanu ka adkaysanaynay maanta midaanan ka adkaysanayn oo dulqaadan karayn baa muuqda waxaanu leenahay oo aanu madaxweyne aanu ku leenahay daayo cunaqabataynta baayac mushtariga mid hoose iyo mid waxa dhacday in shidaalkii maanta taagan yahay badda taagan yahay oo wax allaale wax maxay ahayd lagu haysto aanu garan laanahay waxaan leeyahay madaxweyne dadku waa dadkaagii tii hore ayaa waxay wixii ay ku jabtay waxay ahayd inay gacmaheeda wada hoos timaado dadka qof walba iyagu ay magaranaysaayay gumaysigii laga cararay ayaa muuqda waxaan leenahay baayac mushtariga siida uma dul qaadanayno kuwii yaraabaa la haystaa diyaaradii kuwii ka mas-uulka ahaa la haystaa kuwii shidaalka ka mas-uulka ahaa shidaal keeni jiray la haystaa kii warshad yar meel ka sameeyay yidhi warshadaa yar baan ummadda u abuurayaa la haystaa waxay ahayd inaad wuxuu abuurto shaqo abuur dadka u samayso oo dadku kala soco maanta haddii intii yarayday dhaqdhaqaaqaysana aad tiraahdo wax gacantayda kusoo dhacamayo wax kala soconaya ma jiro dee midaan u dul qaadanayno maaha adigoo wadani baa tee jecel inaad waarto anigaan kursiga kaa wadayn weedhna kugu raacsan ha noolaata iyo weedhahanada ku waalahayo iyo waranka hoostayga midow waaba kala xawl horta dee baashu waa baashii aanu doorannay ee aanu halkaa dhignay ee har iyo habeen aanu gurarahaynaynay il gaarabaa reerka ku godan oo bari ku godan oo reerkan ku godan dee garan weyna inaanad dee wax ay samaysay ay gashay iyo inaad u badheedhayna waanaan kala garan haddii xilalkii wixii meesha aad ugu tumay intoodii aan allaba ama saddex aanay joogin wixii kaleba aad ka qaaday hadday garaada tahay haddii ay shaqaale dawladeed tahay hadday ciidamo tahay wixiiba dhulkaad ka dhigtay adiguna halkii laga eegaya inaad waa raggii ku doortay ee aad dallacsiiso oo wax u kordhiso dee waxbaad kasii dhicisa midka kale ee dadkuba ku wada socdaa waa baayac mushtari ila dhaqaalo kale ma lihiin waxa yare la yareeyayaa baynu dhaqaale haysanaa haddii reerkii aad wixii meel fadhiyayba ka erido oo tidhaahdo idinku suga badda la maraakiibtu taagan tahay diyaaradihii ka joojisay dee waa hashii way nagu soo kartay waxaanu madaxweyne ku leenahay dee balduba wuxuu eego haddii ay kula noqotana sidaa wax ka bedel dee haddii aad ka maarmi weydana dee kuwa reerka beeshooda waa ka tashanaya arrinkooda waa ka tashanayaa weli maha weli waa xaaladdu
dee xagga iyagun bay ka tahay deganaashee dee xaggaa kama aha maanta ummaddu waxay ku tiirsan tahay waxa weeye shaqo ma haysato dawladdu shaqo abuur uma samayso waxa ummadi ku tiirsan tahay ummadda somalilan oo dhami ku tiirsan tahay waa ganacsatada haddii ganacsatada loo soo dhigtay ma yeelayno annagu in ganacsatada wax la yeelo umama dul qaadan doono daruurigii mar haddii la isugu soo dhigtay in badan baanu aamusnay waxa weeye halkii laga dagaalamay ee dawladda maxamed siyaad barre lagu dumiyey maanta ayay maraysaa waxay maraysaa in la yidhaaho baac mushtarkan qofkan adigu iska daa hebelba tiisaa shaqaynayse mid laga aamus karaya maaha dhammaan waxaanu taageersannahay oo uu matelaa boqorka hadlay beesha weynta uu ka soo jeedo waanu taageersannahay hadalkiisa waa biyo kama dhibcaan hadalka boqorku yidhi waxaanu kaloo halkan aanu baaq uga soo jeedinaynaa madaxweynaha hore warar ay u gaadheen oo beesha cabashadooda u gaadhsiisay say waxba ka qaban yahay madaxweyne inta ku hadhay anigu waxaan ku odhan lahaa inta ku hadhay ee ganacsatada na ka qaad wixii ay hayaan ka qaad mar haddaad u bareersan tahay waxba ha la hadhin beeshuna way tashan doontaa talay ka gaari doontaa arrimaheeda waxa la isweydiiyaa ama meesha ku jira inkastoo ummadda oo dhan cabasha ay jirto haddana laba arrimood oo muhiima oo ku socda beesha aan ka soo jeedno ayaa waxa loo dulqaadan kara noqon waayey intaan aan eegayni waata koowaad hadday tahay shaqaalihii dowladda saraakiishii xubnihii beesha xaq u lahayd madaxweynuhu wuxuu ku kordhiyo daayo intii jirtay waa laga wada qaaday taa iyadoo jirta ayaa waxa jirta waxaan cidina taaban karin dhaqaalaha madaxweynuhu markuu ummad madaxweyne yahay arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga wuxuu ku kordhiyey mooyaane cid taabata oo dhulka dhigtaa ma jirto dowladdeena ka hor waxaa dhacday beeshan aanu ka soo jeedno in taas markay soo dhammaatay xilalkii iyo qaybtii dowladdaanu kale dhammaan markay soo dhammaatay ee intaanu aamusnayn waxaa dhacday in la cunaqabateeyey oo la xidhay kuwii keenayay shidaalka oo la diiday shidaalkii dejiyaan kuwii warshadaha samaystay oo lagu khasbay waxyaalaha aan kari karayn kuwii haamaha kuwii wakiilada ka ahaa agensiga ka ahaa shirkadaha caalamiga ee waddanka maalgeshiga u yimi iyagoo awgood shirkadii lagu joojiyey arrinkaas waxay noqotay markaa beeshu aragtay inuu yahay arrin bartilmaameed oon been la bartilmaameedsanaya ah marka ay sidaa tahay madaxweynaha mar hore aanu kala hadalnay arrimaha laakiin wax jawaaba kamaanaan helin waxaan filayaa baaqan inuu noqon doono kii u dambeeyey markay sidaa tahay dee haddii xal kale la garan waayo annagu waxa leeyahay madaxweyne ka gaabaanu leenahay oo dib isugu noqo oo haddii wax kale jiraan oo beeshu gashay dee u sheeg laakiin ganacsiga iyo cunaqabataytan xooggani aan maxamed siyaasad sameyn aad ku wada ka gaabaanu leenahay haddii taasi dhici weydo dee beeshu way tashan doontaa kolley